dadkii oo hubaysan iyo aano oo dadkan hadii la kala simirsiin lahaa hubka dhigisna lagu sameyn lahaa waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin dhammaan in qaramayn lagu sameeyo ciidamo beeleedyada iyo inay dawladdu ay focus gaar ku saarto qorshe gaarana u samayso in mashaariic horumarineed loo sameeyo bulshada reer Celaf Weyn ee dagaaladu ay riiqeen muddo 10 sano ah la soo daaladhacay colaad nabadgelyada Celaf Weyn in badan baa dadaal badan la geliyay waqtigii u dambeysay haddii aan kaaga soo qabto halkii ay mareysay marka marxaladii hore laga yimaado waxay mareysay in maaragtay dadkii waayeeladii la soo keeno in maaragtay magihii loo waxay ahayd in aasaskii loo kala qaado dadkii colaadii u dambeeyay iyo dhacdooyinkii u dambeeyay ku dhintay in maaragtay laga qolo walba laga qaado kalsooni ah inay nabadgelyo qaadanayaan halkaas ay xaaladdu mareysay waxa harsanaa waxay ahayd in la wada hadal siiyo dabadeedna wixii khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare hantiyeedba ah maaragtay loo kala qoro oo maaragtay halka laga sii daadajiyo oo dhameystirkii nabadda la xidho ayaa harsanayd runtii kolley duruufo badan baa jira haddaan mid iyo laba kaaga taabto waxyaabaha haddeeraan isleeyahay colaadda way soo celcelinayaan waxaa ka mid ah koow go-aankii u dambeeyey Celaf Weyn oo kale lagu kala qaatay waxaa jiray dadkay wax ka dhinteen waxa loogu talagalay in la samirsiiyo oo labada beelood ee Garxajis iyo Habar Jecel ay samirsiiyaan oo magihii markaa dhex yaalay dadkii u dambeeyay inay iyagu bixiyaan dib dhac taa ka yimi iyo sidoo kale maaragtay dadkii oo hubaysan iyo aano intaasaan isleeyahay baa soo celcelinaya oo dadkan hadii la kala simirsiin lahaa hubka dhigisna lagu sameyn lahaa waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin dhammaan lahayd ugu horeyn xukuumadda dhalatay runtii waan ku habaleynayaa shaqada wanaagsan ee ay wado waxaan u dirayaa baaq kooban oo ah inay xukuumaddu dardal iyo juhdi geliso sidii loo dhameystiri lahaa waxa weeyaan nabadgelyada Celaf Weyn sidii loo dhameystiri lahaa oo boog weyn ku ah qaranka Soomaaliland in la keeno ciidamo maaragtay hubka dhigis ku sameeya magaalada Celaf Weyn iyo deegaanada hoos yimaada in qaramayn lagu sameeyo ciidamo beeleedyada iyo inay dawladdu ay focus gaar ku saarto qorshe gaarana u samayso in mashaariic horumarineed loo sameeyo bulshada reer Celaf Weyn ee dagaaladu ay riiqeen muddo 10 sano ah la soo daaladhacay colaad waxaynu arki karnaa hadda labadii sano u dambeysay colaad bayna haysatay dhaawac ay u geystay Soomaaliland oo dhan weyn og bal ka waran degmada ay 10 sano colaad ehliya oo gudahooda ay dhex taalay marka waxaan aad baaq ugu dirayaa inay bulshadu mashaariicda horumarineed oo focus gaar ah ay Celaf Weyn ay maartay saarto mashaariic horumarineedna dadka loo fidiyo la jiheeyo si ay maartay dadku ay noloshoodu soo kabtaan ugana baxaan mushkiladan iyo xaaladan colaadeed waxa weeye nolol ay u helaan